gudoomiyaha haweenka ee heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani Marwey Faraax Cumar Xasan oo maanta shir jaraa'id ku qabatay magaalada Hargeysa ayaa ayadii kulul jeesay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyadoo ku eedeysay xisbigaasi inaanu ahayn xisbi qaran balse uu yahay xisbi qabiil iyadoo sheegtay inay ka gudan weyday shaqooyinkii ay haysay xisbigaasi qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbigaasi kuwaasi oo ay sheegtay inay kula dhaqmeen hab qabiil Marwey Faraax Cumar Xasan oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa tiri sidatan waxaan ku dhawaaqayaa inaan iska xasilay xilkii aanu hayay xisbiga wadani xisbi mucaaradka wadani oo ahaa gudoomiyaha heer qaran ee xisbiga wadani ee garabka haweenka kaas oo ay sababtay arrimo ii gaara iyo arrimo caamba runtii saddex cisho imika waxa magaalada ku jiray gudoomiyaha heer qaran garabka haweenku uu iscasilayaa ama waa la kaxaysanayaa ama waxa la geynayaa xisbi xaakimka wadanka saddex cisho wararkaas uu igu soo noqonayay waanan maqlaayay sida runtu tahay waxyaabaha haddii aan xitaa ka baxo wadani ee aan tago xisbi kale igeeyay waa waxyaabo faad aan fikiris ah oo aan arkay intii xisbiga aan joogay waxaan maleeyahay muddo 4 bilood ayaan xilka xisbiga hayay xisbiga waxaan moodayay inuu yahay xisbi dimuqraadiya oo ay u siman yihiin beelaha Soomaaliland ku wadaaga amba saami qaybsiga ku leh laakiin ma aha xisbiga horeysiya dambaysa waxa taladiisa haya ama maamulkiisa haya ama ay ka go'daa arrimihiisa siyaasadeed reer gaar ah kuwaasoo ku soo xoomay ama hareeyay hankii siyaasadeed ee anigu aan ka lahaa ee aan islaha xisbiga waad hankaaga siyaasadeed baad ku gaari kartaa runtii waxaa ka mid ah maamulka xafiisku aad u liita waxqabadka xafiiska ama xisbiga oo aan ahayn halkii loogu talagalay maadaama mucaarad yahay waxyaabo badan oo aanan filanahayn inuu igaga iman doono xisbiga ayaa igaga yimid aad baan uga xumahay inaan hankayga siyaasadeed ee mucaaradnimo aan ku hungoobo aad baan uga xumahay laakiin waxba ma leh xisbiyo badan baa waddanka jira tartan siyaasadeed baa lagu jiraa haddii ay reer kaliya ku koobnaatay waa wax iyaga u yaalla umana maleynayo inay ka gudbayaan marxaladda u taalla waxaa jirta xalay toole inaan ku arkay website-yada amba TV Star warqad ka soo baxday xisbiga oo la leeyahay xilka xayuubis ama ay ku qornay ku saxeexnayd xogayaha guud ee xisbiga aniga dashir qaran baa laygu doortay shakhsi imuu dooran gees ka gees ergeedii ka timid baa aniga i dooratay gacanna ii taagtay ma ahayn wax xogayaha guud i doortay ama aan gurigiisa ka shaqaynayo uu marna eri karo marna uu keeni karo aad baan uga ballaadhnaa cod midaysanna waan ku majority vote baan ku imid ee kuma iman xitaa cod liita kuma iman waxaan u maleynayaa 194 ergey ayaa gacanta ii taagay 2 ergey baa ka aamusay oo gacanta taagay marka xogaya waxaan ku leeyahay horta background-kayga dib u eg markaasaad xilka iga qaadi doontaa inaan cod ku imid iyo inaanan ku iman shirweyne heer qaran aan ku imid macal asaf isku soo wada duuduwa muddooyinkii u dambeeyay xisbiga mucaaradka ee wadani waxaa si istaba jooga ugu baxayay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbigaasi mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbigaasi iyagoo mas'uuliyiintaasi ka baxaya xisbigaasina ay ku eedeeyeen xisbiga mucaaradka ee wadani inuu yahay xisbi qabiil balse aanu ahayn xisbi qaran waa Idris Yahya Somaliland Space Channel Hargeysa.